dadkeena Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin samata bixin, waxay u baahan yihiin qarannimo, waxay u baahan yihiin dowladnimo, waxay u baahan yihiin nolol, u baahan yihiin qaanuun dalka haga, qaanuun dadka haga, qaanuun dadka haga ayay u baahan yihiin deegaankana haga. sidaas darteed waxaan dul istaagayaa qodobadeeda iyo hadalkayga aan la hadlayaa mucaarad iyo muxaafid iyo bulshada rayidka. mucaarad iyo muxaafidu waxaan idin leeyahay dadkeena Soomaaliyeed waa ay ka soo daaleen dhibaatooyin, waa ay ka soo daaleen dagaallo, way ku soo daaleen qax, way ku soo daaleen barakac, way ku soo daaleen qarax, way ku soo daaleen dhimasho. agoomo ayaa la marayaa, agoomo ayaa joogta magaalada Muqdisho. agoomankaasi kasoo bilow ilaa iyo 91kii burburkii iyo qaxii iyo dhibaatooyinkii ilaa ay haddeer dad baa agooman noqonayay, ciyaal baa agooman ahaa, aabahood hooyooyinkooda waalidiintooda dhimanayeen, la dilayay, qarax ku dhimanayay, si kale loo dilayay, si kale u dhimanayay. runtii waxaa ceeb iyo fuxshi iyo nasiib xumo ah in dalkeennii oo sidaasi 30 sano kasoo kabanahay maanta in dagaal iyo qax iyo dhibaato la sii geliyo. waxaan aad ugu digayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed, mucaarad iyo muxaafid ba ahaadaano, xil wuxuu yahay waad soo dhadhamiseen oo waad soo carabka soo saarteen oo waad soo leefteen. dadka Soomaaliyeed ha loo tuuro, dhibka ha laga daayo, ha la daayo dhibaatooyinka iyo dagaalka la hayo. meel hadda lagu dagaalamo lama joogo, meel hadda la hub aruursada lama joogo, meel dadka lagu qaxiyo lama joogo, meel hadda ceelasha Afgooye weedow tabeelaha lagu aado loo qaxa iyo meelo kale loo qaxa lama joogo. waxaa la joogaa meeshii dadka Soomaaliyeed la garab qabanayay, masaakiinta agoomanka ah la garab qabanaya la joogaa. lama joogo meel lagu dagaalamo, waxaa la joogaa bishii barakeysneed ee Ramadaan. dadkeena mas'uuliyiinta ah ha ahaadaan mucaarad iyo muxaafid, anigu maahi mucaarad mana ihi muxaafid, waxaan ahay shacab Soomaaliyeed oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa u damqanaya ayaan ahay. dadka ha loo turo, dadka yaan la layn, dadka yaan la baabi'in. qax wuxuu yahay waan ognahay, dhibaato waxay tahay waan ognahay. fitan iyo dagaal in la kiciyo ma ahan, fidnadu way hurdaysaa. ilaahay ha lacnado qofkii soo kiciyo. waxaan idin leeyahay suguuyar ayaan ahay, waxaan u baahannahay dowlad, waxaan u baahannahay qarannimo, waxaan u baahannahay dalkeennoo hagaagsan. uma baahnin dagaal iyo qax iyo dhibaato isahaysi, uma baahnin iyo isqobqob iyo qabaliyo iyo jaahiliya, uma baahnin. waxaan u baahannahay in dadkeena Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee agoomanka ah iyo dhibaataysan, jiisaska ah, curyaamiinta ee aan awoodin inay baabuurtaasi ay ku qaxayaan ay ijaartaan ama lacagta iska dhiibaan, yaan la qaxinin, yaan la rafaadaynin. warsoon waay, bil Ramadaana lagu jira, ummadda ha loo turo, ha loo tanaasulo, ha la daayo dhibaatada. dadkeena Soomaaliyeed ha loo turo. aadaad u mahadsantihiin. waa wiilkiina Sugowyare. waa aadaad u mahadsantihiin. waa wiilkiina Sugowyare. asalaamu calaykum waraxmatullahi.